السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري كسود هذا ساف تي في عبار بانو كلا مقنين وان هولاهم با iska badnaaye hase ahaatee maanta game aan laga harsan karin oo laga aamusi karin ayaa maaragtay dhici doona markii ay saacadu tahay 6 galabnimo ciyaarta ayaanu doonaynaa inaan maanta wax ka niraahno sida ogtihiinba waxa aan sameynay prediction aan maaragtay aan isleenahay yaa qaadi karo yaa semi-final soo gaari karo waxbaa iska daba imaaday videogii ilaa hadda waxaan ku adkaystay markii aan maaragtay predict gareynay in ay qaadi doonto Argentina hase ahaatee waxbaa isbedbedelaya maaragtay France oo aan marnaba aanan filaynin inay final soo gaari doonto ayaa final soo gaartay marka halkani waxaa ila fadhiyo nin horey maaragtay oo u jirjiri jiray videoyada hase ahaatee cabaar ka maqnaa maantana aan maaragtay aan is helnay waxaan maanta tusaaleynaynaa oo aan fikradda anaga ka bixinaynaa labada team keebaa awoodeeda iyo waxa ay ku qaadan lahayd haysta si uu ugu guuleysto koobka adduunka waxaan kusoo dhaweynayaa marka hore Cabdullaahi Spaki oo aan leeyahay kusoo dhawow channel khayr aadan idin salaamaya isku ogtiin wax maanta aan meeshan ka dhigi rabno aniga waxaan qabaa oo fikradeeda ay tahay ama u saadaalinayaa inay Argentina qaadi doonto koobkan Faransa ma bisdeeni meeshan imaan doonta waxaan isdhahay haddii group ku harin 16 ma dhaafayso laakiin waxa waa iska football oo maaragtay Bologna waa iska cad iyo madow waa imaataba final la jooga adi Mbappe waxa waaye waxaa raba wuxuu leeyahay koobka Giroud meesha shaqaysanayo marka tiimash loo saadaalinayo sida Brazil oo kale iyo waa hareen waxa waaye cidda seexda la cidda timcadayaasha marka France maxaa ka qaldan oo ani fikrad ahaan u qabaa is teamkan ay soo qaadi maaragtay koobkan ay soo qaadi karin waxaa ka mid squad depth-ga maaragtay teamka awoodiisa maaragtay qaasatan maaragtay qaybta dhexe aad bay u jilcan tahay sida Argentina oo kale maaha Argentina waa dad aad iyo aad u adag oo kusoo galay waa very aggressive ayaga dhanba Bologna markaa qabato 5 nin 6 nin dalaq dhulkay ku dhigayaan iska dhaafina Bologna agmarsiisa dhulka lagu dhigaaba marka maaragtay malaha France dad aggressiveness malaha ayaga laakiin waxa waaye halka chance ay haystaan waxa waaye labada garbood waxay ka haystaan laba nin orod badan iyo Griezmann oo maaragtay sanada dhaxda inuu ka qaado oo cross geeyo Giroud oo maaragtay player header bisba shaqadiisu player header waa koobka meeqa header la dhaliyo mataqaan 3 header 4 header waa la dhaliyo qofka ugu horeeyana 5 gool u dhaliyo Soomaa marka waxa waaye France dhaxda looga awood badan yahay iyo difaacada aggressiveness hal nin oday gadaal iska taagan Varane taagan marka awal Messi shaqo u taalo waxa waaye halkiisa gool waa soo qabsanay labadiisa waxay kaloo haystaan nin la dhahayo Julian Alvarez oo orod badan oo xoog badan guulaha hadda iska torsataa garabkiisa iskaga dhacay weynka kabad waa balaaran yahay waa soo dardarayo oo Bologna wato oo dadkii wato oo shabaq gala ninka Tuchel washio ku dhiga anaga yaabnay marka qaari maaragtay France waxa uu rajeynayaa inay ahaato number 2 Argentina number 1 ninka la dhahayo greatest of all time Messi oo ku imaamadana ma ka tago tan maaragtay waa u dagaaltamayaanba waxa ka dareemaysaa teamka qaabku iskula jiro ninka ma bisdeesid Argentina koobkay rabtaa laakiin waxay leedahay koobka waxa u rabnaa Messi u difaacayaan say ugu dadaalayaan teamku waxa uu leedahay waxay u shaqeynayaan qaranka u shaqeynayaan Messi u shaqeynayaan Messi waa ogtiin Maradona recordkiisu jibin rabaa waxa kaliya oo ka maqan oo ku jibinaan waxa waa koobka inuu qaado koobkan hadoo qaadeen Maradona ma gaarayo goolal waa dhaafiye wax qabad waa dhaafiye koobkan la ku dhagan koobkan hadda final uu jooga marka waxa waaye dhadheel ma wafkana Argentina waxa waaye inay dhadheel ugu fakato ama Messi dhadheel ugu fakado koobkan waxa waaye way adag inkastoo maaragtay football oo waxaan oo yahay oo wax walba dhici karaan oo France maaragtay Giroud laba header gab baxa Argentina gurigiina ay ka dhici karto laakiin way adag tahay waa ciyaar loo wada fiirsanayo waaye labadooda mid baa number 1 midna waa number 2 xalan waxa ciyaaray Croatia iyo Morocco waxa la isku dagaalay number 3 Morocco waa la goostay France ni jibisa uma leeyahay dadka waa lagu yaacay xalan 2 lagu yaacay Croatia number 3 wadada Modric ahaa waa wuxuu taagan number 3 sanad korna koob korna wuxuu joogo final marka
waa kaas ciyaarihii hadda waa saas haddana waxa waaye ninkaana weydiinaynaa isna maaragtay wuxuu ka leeyahay tiimka uu saadaalinayo iyo waxyaaba uu saadaalinayo haye aniga horta sidaa predict gareeyey videogii horena aan ku sameeyey waxay ahayd inay final iskugu imaan doonaan Portugal iyo Argentina hase haatee Portugal maaragtay mucjiso iska socotay oo ciyaar fiicanna aanan ku soconin maaragtay awood iyo khibrad ay u leeyihiin World Cup-na aanan ku soconin yaa dadka iska soo dhex jiirtay sanadkan Morocco from groups intay kasoo bilowday yaa ilaa semi-final waxaa la iskaga soo socday wax ilaa hadda aanan dhihi karin mabnuun bay ahayd manama ilaahay iska soo sii daayay oo dadka ku imtixaamay ahaayeen oo iska socday marka World Cup-ka qaaday waa funny uu ahaa wuxuuna aaday oo maaragtay ka hor imaaday sidii ay dadka ay maaragtay ay saadaaliyeen oo idil ayuu ka hor imaaday hase ahaatee labadan team xoogaa shaki baaba i galayba waa hore waxaan ku qanacsanaa oo ku adkaystay inay maaragtay ay Argentina koobkan ay qaadi doonto sanadkan laakiin markaan arkay Griezmann iyo Mbappe ninkan Tchouaméni iyo Dembele markaan arkay waxay sameynayaan waa aad baan ula yaabay waa baloonta hal mar lugta ii geli Mbappe kugu tuuranhayo hal mar oo dhex soo gelinaya Giroud loo qaaday madaxay ku jirtaa marka gamekan waa adiga inkastoo Argentina laftirkooda physical game ay dheelaan oo taako la badan yihiin oo maaragtay ciyaaryahano aad ugu talagalay ay yihiin inay World Cup-kan uusan daba marin hase ahaatee weli waxaan is leeyahay Messi wuxuu abuuri karaa moment ama laba moment oo maaragtay gameka dili karto oo maaragtay meelna maaragtay meel saari karto oo ku dhameyn karto la isdhihi karo maaragtay daqiiqado yar oo Messi uu baloonta lugta geliyay ayaa wax walba dhameystay inkastoo footballna ay tahay wax walba ay dhici karaan hase ahaatee waxaan saadaalinayaa gamekan inuusan 90 minutes uusan dhaafi doonin ciyaartaana ay ku dhamaan doonto 2-1 ama 3-1 oo maaragtay ay ku dhamaan doonto oo Messi uu sanadkan maaragtay koobkan uu qaadi doono maadaama waxaa la yidhi nin jabkiis waxaa leh nin kale farxadiis ma ahayd wax sidaas camal hadduu maaragtay Ronaldo uu jabay asaga wuxuu leeyahay hadda adiga waa qofka taagan ee keliya hadda soo taagan waa adiga adna nin yahow yaa lugta lagugu dhigin marka waxaan u rajeynayaa inuu sanadkan uu koobka qaadi doono marka wakaadii ciyaarta maxaa is leedahay final ma dhaafi doontaa 90 waxay aadi doontaa extra time mise 90 minutes lagu kala bixi doonaa maya ani misdahay 90 minutes lagu kala bixi doonaa laakiin extra in lagu daraa ila tahay maxaa yeelay labada team waa qof walba wuxuu leeyahay yaa lagu gaadin marka muddo dheer ay qaadan kartaa marka haddii extra lagu daro iyo haddii penalty gaarsataa waa France waa la goosana dadkan waa dadka si u tuurinayo waa professionals ba ayaga dhanba mababno marka waa extra waa gaari is leeyahay ciyaartu waa always ciyaar final oo degdeg ma jirto oo maaragtay oo haraka laakiin waa meesha Liverpool iyo Real Madrid ma ciyaar weyn oo degdeg saddex la iska dhalinayo afar final wax macquul ma marka waa ciyaartu waa soconay cabaar okay marka khiyaare idinkuna sida aad maaragtay aad leedihiin aad maaragtay predict gareynaysaan oo tusaaleynaysaan wala wadaag qaybta commentiga aniga waa intaas ay iga tahay ninkan inta ay ka tahay oo waxaan is leeyahay 90 minutes islama dhaafi doono waa kala baxay kitaabaday ku tahay marka waxaad wala wadaagtaan yaa is leedahay wuu qaadi doonaa ciyaartana sidee ku dhamaan doontaa oo maaragtay yaa haddii ay 2-2 ku dhamaanaysa iyo haddii hal 2 ama extra time la aadi doono intaba wala wadaag qaybta commentiga haddana waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.